gaarigan baradada ah ee arkaysan waxa hadda laga soo dajiyay baabajay markii ay meel geliyeen iyo handadeen ee waliba ay jirjireen ay jaakada jag iga siiyeen xataa mid kamid ah baakoorto jag iga siiyay oo ii ballan qaaday in xabsi aniga leegeenayo oo la xiraayo ee waliba qol igeliyeen markii aan qalqalay oo aan cabsaday ee qolka sigeliyeen dadkii waxaan saday caawa ku dil rabaan jilaaga weyn ee baabajay ayaa caawa lagu afduubtay magaalada Muqdisho waxaana loo geystay jirdil baahsan iyadoona la damacsanaa in xabsiga loo taxaabo hadaba daawadayaal sidee ayaa loo afduubtay baabajay sideesa ayuu kaga soo badbaaday qatarihii lala damacsanaa maxayse ahaayeen hanjabaadihii loo geystay markii la afduubtay hadaba daawadayaal inta aanan kula wadaagin muuqaalkiisa iyo macluumaad kale oo sira oo ku aadan cidda ka dambeysay afduubka baabajay inta aanan gudagelin fadlan marka hore muuqaalka leegaray si uu baaho una gaaro bulshaweynta Soomaaliyeed si ay u garab istaagaan baabajay sidoo kale nagu soo biir oo kamid noqo asxaabteena adigoo channelka subscribe dhahanaya gan baleelkana u furanaya hadaba daawadayaal arrin argagax iyo naxdin ku abuurtay dhammaan dadka Soomaaliyeed ayaa ka soo yeertay magaalada Muqdisho kadib markii fiidnimadii xalay magaalada Muqdisho lagu afduubtay jilaa caan ah kaas oo lagu magacaabo baabajay koox dhalinyaro u abaabulan ayaa ku qaadatay gaari noocyada bensal kala waan waxba laga arkaynin waxa ayna geysteen goob cidla ah iyagoona halkaasi ugu geystay jirdil hanjabaado iyo waxyaabo kale oo argagax leh baabajay oo arrintaasi ka sheekeynaya ayaa si qeyrala bulshada Soomaaliyeed ugu soo bandhigay isagoona soo bandhigay qaabkii uu halkaasi kaga soo badbaaday bal hadaba aynu isla daawano muuqaalkiisa Assalaamu calaykum abeen wanaagsan saaxiibayaal meel kasta joogtaan soo dhawaada waxaan ku suganahay wadada dabka gaarigan baradada ah ee arkaysan waxa hadda laga soo dajiyay oo saaraa saaxiib qaaliya oo taqaanaan oo wajigiisa ay tusi doono baabajay oo maalmahan aad ogtihiin social media aybta YouTube-ka in xaaladii ka jirtay u dhaxaysay isagay wiilo caawa wuxuu ku dhawaaday in la xiro oo xabsi la dhigo laakiin nasiib wanaag markii dambe waa la soo daayay oo xorriyadiisa ayuu helay baabajay hadda wala joogaa baabajay soo dhawow caawa halis baad gashay maxaa sababay horta arkaysa wada gaarigan ka soo degay maqribadii markii aheeda waxa ay imaadeen niman dhalinyaro ah waxay dhaheen arrin baan rabnaa inaan kala hadalno waxa ay xayeysiin waxyaabaha si u baahan yihiin markii ay meel geliyeen waxay ii handadeen in arrintii wiilo ay ugu haysteen ee waliba ay jirjireen ay jaakada jag iga siiyeen xataa mid kamid ah baakoorto jag iga siiyay oo ii ballan qaaday in xabsi aniga leegeenayo oo la xiraayo ee waliba qol igeliyeen markii aan u sheegay xaaladda sida ay u jirto aniga wiil inaan dhibaato u geysanin wiil inaan wax ka xadin wiil inaan aniga aan xuquuqdeeda ku xadgudbin wiil inaan xumeena aan u sheegay kaliya muuqaal inaan u duubo ee ballanta aheyd aan balantaas aan uga baxay kaliya ee sheekada taagneed oo waliba diyaar aan u ahay inaan raali geliyo oo aad aragteen inaan raali gelinayo muuqaalo badan aniga aan u diray wiilo dad badan oo gudiyaal aan u xil saaray arrintaas si ay u dhaxgalaan markii aan ka dhaadhiciyay iyo dhalinyaro badan arrinta ay soo faragashteen iyaga qaarkood isqabsaday kadib xorriyaddeedan dib u helay waa garta dadka caawa ku xiray oo runtii meesha joogta ka kaxeeyay ee gaadiidka watay ma hubaysnaayeen ma askar bay ahaayeen maxay kula ekaan dhalinyaro caadi ahaayeen askar ma ahayn dhalinyaro caadi ahaayeen waxay wateen bistooladay wateen aniga meel ay ka imaadeen ma sheegi karo wajigooda tasfiicno ma arkin markii aan qalqalay oo aan cabsaday ee qolka sigeliyeen dadkii waxaan saday caawa ku dil rabaan wax jirdil oo lagu geystay ma jirin maya kaliya waa jaakada jag iga siiyay midna baakoorto jag iga siiyay markaas waa dhacday waa dhacay mid kale taa wuxuu yirniyo ninkan dhibaato u geysanin kaliya inaan su'aalo weydiino meeshan u keenay haddii anaga waxaan karna aan ka wareerino meeshan noo seexdo waa gartaageerayaasha marka wiilo maxaa leeyahay marka ugu dambeyn taageerayaasha wiilo waxaan leeyahay aniga dhibaato hay geysanina aniga wiilo waa walaashayda waan jeclahay oo qof aniga igu weyn anina xumeeyo mar wax kasta ku qancaysan oo sameeyaan diyaar u ahay laakiin aniga nafteeda yaa dhibaateena aniga qof dawladda ka tirsanami qof dhinac kale ma jirana waxaan iska ilin shacab yaa dhibaateen ninka gabadhana waa gartan waa lagu jiraa garteeda waa lagu jiraa waxaan raali ka ahay wax walba ku qancaysan oo sameeyo baabajay aad u mahadsan yahay saaxiibayaal saaxiibkii baabajay uu ahaa oo runtii ka hadlaya dareenkiisa iyo caawa wixii ku dhacay dabkaan joognaa hadda uu nala joogaa uu nala baashaalaya shaah uu nala cabaya waxaan rajaynaynaa in arrinta u dhaxaysa isigii wiil la dhameeyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ku xirayaa muuqaalka sheer garay la wadaag saaxiibadaada adigoo tala siinaya baabajay iyo wiilo si arrinta loo dhameeyo YouTube-ka baabajay ku soo biir oo si raac oo maasantiin assalaamu calaykum dadka caawa ku xiray oo runtii meesha joogta ka kaxeeyay ee gaadiidka watay ma hubaysnaayeen
ma askar bay ahaayeen maxay kula ekaayeen dhalinyaro caadi ahaayeen askar ma ahayn dhalinyaro caadi ahaayeen waxay wateen bistooladay wateen aniga meel ay ka imaadeen ma sheegi karo wejigooda taas fiican uma arkin markii aan qalqalay oo aan cabsaday qofka sigeliyeenna laakiin waxaan isdhaay caawimo ku dili rabaan wax jir dil oo lagu geystay ma jirin maya kaliya waa jaakada jag iga siiyay midna baakoorto jag iga siiyay markaas waa dhacday waa dhacay mid kale taa wuxuu yirnay ninkan dhibaato ha u geysanin kaliya inaan su'aalo weydiino meeshaan u keenay haddii anaga waxaan karna aan ka wareerino meeshaan noo seexdo waa gartaageerayaasha marka wiilo maxaa leedahay marka ugu dambeyn taageerayaasha wiilo waxaan leeyahay aniga dhibaato ha ii geysanina aniga wiilo waa walaashayda waan jeclahay waa qof aniga igu weyn anina xumeeya marra wax kasta ku qancaysan oo sameeyaan diyaar u ahay laakiin aniga nafteeda yaa dhibaateena aniga qof dawladda ka tirsanami qof dhinac kale ma jirana waxaan iska ilin shacab yaa dhibaateen ninka gabadhana waa gartan waa lagu jiraa gabadha garteeda waa lagu jiraa waxaan raali ka ahay wax walba ku qancaysan oo sameeyo baabajey aad u mahadsan yahay saaxiibayaal saaxiibkii baabajey uu ahaa oo runtii ka hadlaya dareenkiisa iyo caawa wixii ku dhacay dabkaan joognaa hadda wuu nala joogaa wuu nala baashaalaya shaah nala cabaya waxaan rajaynaynaa in arrinta u dhaxaysa isigii wiil la dhameeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ku xirayaa muuqaalka sheergaray la wadaag saaxiibadaada adigoo tala siinaya baabajey iyo wiilo si arrinta loo dhameeyo youtube-ka baabajey ku soo biir oo sii raac waa mahadsantihin asalaamu calaykum haddaba arrintan baabajey iyo afduubkiisa ayaa dadka Soomaaliyeed waxa ay ku sheegeen in ay ka dambayso maadaama isaga iyo gabar lagu magacaabo wiilo uu ka dhaxeeyo xurguf dhanka baraha bulshada ah waxay isweydaarsadeen dhowr muuqaalo ay soo galiyeen barahooda YouTube-ka iyagoona khilaafkooda uu sii xoogeysanayay maalmihii ugu dambeeyay dad badan ayaa qaybta commentiga waxa ay ku soo qorayeen sheekadani waa baranki hase yeeshee arrintu halkaasi way dhaaftay maadaama ay marayso afduub iyo qof jirdil in loo geysto sida aan wadaogsoon baabajey waa qof aan lixaadkiisa u dhamaystirnayn mana ahan in sidii la doono loola dhaqmo haddaba waxaan leeyahay dowladda Soomaaliya waa in arrinkani baaritaan ay ku sameeydaa sidoo kale bahda Haldoor Media waxa idinla soo wadaagi doontaa xogaha iyo macluumaadka laga qoro baabajey iyo afduubkiisa haddaba daawadayaal halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa warbixintii aan ka diyaariyey inta aan muuqaalkiisa kala kulmayno sida iyo nabadgelyo mahadsanidin gaarigan baradada ah ee arkaysan waxa hadda laga soo dejiyay baabajey markii ay meel igiyeen iyo handadeen ee waliba ay jiljileen ay jaakada jag iga siiyeen xataa mid ka mid ah baakoorto jag iga siiyey oona ii ballan qaaday in xabsi aniga la igeenayo oo la xiraayo ee waliba qol igeliyeen markii aan qalqalay oo aan cabsaday qolka sigeliyeenna laakiin waxaan isdhaay caawimo ku dili rabaan wax jir gaarigan baradada ah ee arkaysan waxa hadda laga soo dejiyey baabajey markii ay meel igiyeen iyo handadeen ee waliba ay jiljileen ay jaakada jag iga siiyeen xataa mid ka mid ah baakoorto jag iga siiyey oona ii ballan qaaday in xabsi aniga la igeenayo oo la xiraayo ee waliba qol igeliyeen markii aan qalqalay oo aan cabsaday qolka sigeliyeenna laakiin waxaan isdhaay caawimo ku dili rabaan